wuxuu ku neegeeyay gabaygan oo la yiraahdo dhulka hooyo waxa iska la midhiisa Caynab Iidle Maxamed Cashuur ninka tirinaya hadda idin marinayna waa Axmed Muuse gabaygaas wuxuu ahaa sida geel dhanaanka iyo biyaha saban ka dheeraaday oo ay xiriyaha uga dhigeen dhinacyadii xaabo oo dhoohayo geedihii hoos u dhugan waayay dhalinyarada waa tii bariyahan wax u dhawaaqeen nin waliba ku dheeraa sidoo dhoof u maamulo intay gaga dheelmadeen nugaal kuman waxba dheer aan soo ma dhigtaageen waxay dhaaxba tagayeen dhisma tacab ilaahay hayo dhaqasho xoolaad isagaan ka dhowraa midaan gaal dhuminayn caliyow dhulkayga rabaa inaan dhex jooga dhagaxayo ciidiisu way dheeman iyo luul dhirtoogadiisa naftii dhugu ka helaan haddii aan daraar iyo ka tago dhowr cashiyo maalmo ama aan habeen qura ka dhaxo u dhadhabaya daayo waxay doonayaan doodi iyo sool dhudhubkan iyo kama maarmi karo faraha ii dhow markay dhaseenada tahay dhool ka helaaco ubax wada dhalaaliya cagaar dhihashada guudka darabka iyo geedaha ninday dhigag iyo farax xilliyada isdhalan dooriyay dhowrka midab yeesha dhaxan iyo qabow lagama filo dhiban naftaadii dhinaciyaan doonaan hurdada dhagu iraahdaa daragna cimilada isagu filan dhowr hadaan qado hayeeshee dhibaataa jirtaan cidina dhaadayn dhaawaca jahligeed dadkii dhamiba saameeyey waa dhagala'aan iyo xanuun dhaaranaa maray waa dhabarday hawl rabtiyo dhiri xoog badan midkaan tacriin dheer iyo xaraf midkaan dhaamo wayna dhalaan ka yaryar waxay ka dheefaan wayna iskuulka u dhigaa dhaaxintaan jiro dhitadii wanaagsan dib ay dhaxal reebtaan hadiise dawladnimo loo dhan yahay dhidibka loo aaso oo qaranka xoog loo dhisiyo ciidan lagu dhaato khayraadka dhoobada ku jira dhabanada muuqda baasin in laga soo dhorba waa dhowl arka dhaqsana waxa la soo saaraya waxaan dhamaanayn ee halkii aad ku dhalatay iyo hanicin dhaqankii Soomaali waa dhulka hooyaa gabayga la yiraahdaa